iyadoo jaamacadaha iyo dalalka dunidu ay dadaal ugu jiraan sida ay u dabooli lahaayeen baahida ka dhalatay yaraanta agabka jeermiska lagu dilo kadib faafidda fayraska corona ayaa jaamacadda BSU waxa ay soo saartay alcohol cusub si loogu ilaaliyo badqabka bulshada Puntland. Cabdiraxmaan Aadan Gambool oo kamid ah macallimiinta jaamacadda gaar ahaan qaybta dawooyinka ee soo saartay alcoholshan ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ay ka kooban tahay. jaamacadda BSU waxa weeye iyadoo arintaas ka jawaabaysa waxa weeye qaadaysan talaabooyinka ay maanta jaamacadaha caalamka oo dhan ay sameynayaan waxa weeye maadaama alcoholshi gacmaha lagu dhaqeeyay maanta ay dunida ka sii dhamaanayso suuqyada ay ka sii dhamaanayso intiiradu taalana ay qaali sii noqonayso waxaanu dib isku u fikirnay alcoholshi gacanta lagu dhaqanay ama hand sanitizer loo yaqaan ma sameyn karnaa luckily laabkayagii waxaanu ka helnay ama noo yaalayba horeba jaamacadda BSU laabkeeda raw materialski laga sameeyay alcohol way noo yaaleen alcoholshan aan hadda aan sameynay waxay ka samaysan tahay waxa weeye isopropyl alcohol hydrogen peroxide iyo glycerol waana formulada ay sheegayso WHO in mataqaana saddexdaas material iyo sidoo kale still water waxa ay WHO sheegaysaa guidelines ku xisheeyaan 60% wixii ka haday ka yaraato inaysan dili karin laakiin concentration ka alcohol waa inuu ka bataa 60% alcohol aan sameynaa anaga maanta waa 75% way concentration keedu si aan u xaqiijino marka in concentration ka alcohol meesha ku jira ay ka badan tahay 60% ayna gaarsan tahay 75% waxaanu isticmaalnay refractometerkaas ayaanu isticmaalnay. dhinaca kalena gudoomiyaha jaamacadda BSU Maxamed Sheekh Xamid ayaa tilmaamay in 24 saacba ay soo saari karaan 10,000 oo xabo haddii ay helaan adeeg ku filan. waxaan u mahadcelinayaa kulliyadda caafimaadka khaas ahaan cilmiga barashada daawooyinka laboratoryga oo soo saaray iyagu arinta tan ama maaragtay alcoholkan soo saaray aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan wasiirka iyo dawladda iyo muxuu ahaa iyo hay'adaha caalamka ka codsanaynaa in chemicalski oo yar in la helo waayo qalabkii kale oo dhan waa yaala laakiin waxa dhiman waxa weeye chemicalski maraan weydiiyay oo aan ku yiri qoladii ku hawlanayd meeqa soo saari karaysan 24 saac haddii chemicalski ay heshaan waxay yiraahdeen ilaa 10,000 waa soo saari karnaa. ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Jaamac Faarax Xasan ayaa ballan qaaday in wixii awoodooda ah ay jaamacadda la garab istaagi doonaan si loo kordhiyo soo saarista adeeggan caafimaad. runtii waa wax lagu farxo in maanta waxyaabo kamid ah waxyaabihii chemicalska ahaa la isku dardarayay muhiimka u ahaa inaynu kula dagaalanno cudurka coronaviruska in maanta halkan waddankeena gudihiisa lagu sameyn karo waa arrin runtii aad iyo aad loogu farxo waa arrin ay tahay in la dhiirigeliyo sidaad u ogtihiin cudurkan hadda dunidu aadka ula dagaalamayso saddex waxyaalood baa ugu muhiimsan waxyaalaha lagula dagaalamayo waxaa ka mid ah in gacmaha la nadiifiyo ama saabuun lagu dhaqo biyo ama sanitizerka alcoholkan lagu sameeyo gacmaha in si fiican la saga dhaqo waxyaabaha aynu soo dejisano ee dukaamada inoo yaala farmashada inoo yaala meelo sidan oo kale ayaa loogu sameeyaa China iyo wadamo kale oo la inoo keenaa waana iibsanaa waxaan aad ugu sii faraxsanahay waliba inay free yihiin oo dadka free lagu siin doono oo wax business oo ugu jira jaamacadda aana jirin kaliya ay tahay corporate responsibility goodii ama mas'uuliyadda jaamacadeed ay qaateen kaliya ay tahay annaguna waxaanu runtii ku dadaalaynaa inaanu ka caawino ama u qareenno si kasta oo aan ugu qareyn karno aanu ugu dadaali karno qalabkan la sameeyay waxaan jaamacadda weydiistay in ay quality control ku sii sameeyaan hadii la haydmo iyagoo la kaashanaya WHO. Cabdirashiid Bashiir Cable Garow.